حسن habeenka arbacada soo galaysa diyaarada 19 bish loo bilaasay ciyaar lugtii labaad ee Champions League waxaana lagu ciyaari doonaa garoonka Allianz Arena Bayern Munich iyo Man City sanad kulan gaar waxa ku soo xasuuqan 3 yeebar Bayern Munich ma isleedahay Bayern Munich soo laaban doonta kulanka wallahi kulli anu aragtida gaaban hadaan waa daawanay horta habeenkii hore way koraad waa daawanayay 3 yeebar ku dhamaatay inaanu ciyaarana saxdo iyadoo wuxuu ku bataydi lama oran karo wax dhacay kara ma waa dhici kara laakiin anu isma lihi marama City la qiimeeyo nidaamka uu ciyaarayay macalinkeeda Bayern Munich la qiimeeyo ila ma ina soo loo garto ugu dambeyntii ayaa sanadka 2003 ku guuleysan kartaa Champions League wallahi marka awood la eegayna koox baa la oran karaa marka nasiib iyo la eegayo Champions ka qaadi jirina de Madrid baa joogta laakiin awood marka la eegayo naadiyada Yurub nafsi baa ugu wacan xaga awood xaneed laakiin de koox aad u nasiib badan baa ciyaarayso oo ay isku dhacayaan marka aanu City ma ay qaad sanadka ma Eid Hassan Chama oo ku magac dheer Eid Gambia magacaygu walwey iyadoo habeenka arbacada waxa loo bilaasay ciyaar lugtii labaad ee Champions League oo loo baxay afar dhamaad Bayern Munich waxa laga soo bixiyay garoonkii Man City natiijo 3 yeebar waxaana la tagi doonaa garoonkii mislada Bayern Munich ka soo laaban doonta 3 yeebar kulley Bayern Munich iyo City Bayern Munich waa koox awood weyn garoonkeedina way tagaysaa arena cabsidiisa wata kulley waa suuragal inay soo noqon karto Bayern waayo waa koox awood aad weyn leh haddii ay ka bedelaan sifaasidii hore ay ku ciyaareen ciyaartii hore مثلاً كل هدية سيدة ما نقص بلعوان أي قبل يارو تكدي هرنا وحكش بدران عاد وصل نكون كرتا وأي وقع لورا كري وقع شامبيون وين صون نكون كرتا باير وقول كيبا تضبطهم وصل نكون كرتا باير ودمنت يا سيد رجل استحلال يكون ولا سكر شامبيون ليج وقعد عادي كوحدة وقعد عاد ريال مدريد ريال مدريد بانش علينا يكون بليشتو تايران ريال مدريد بان جوا هاد كسر بين سنة وقعد ريال مدريد وحنكوس سوينا يا ريال مدريد وحيسكواد حرن كوحان يمعلنهان ويبوشيشن كستا وكوحدة ريال مدريد iyadoo aan ciyaarto looran karin ciyaartooyada dunida ugu wacan baa ayaa hadana waxay leedahay qaab ciyaareed aad u sareeya qofku markuu garanka Real Madrid xidhana waxaad moodaa inuu ka wacan yahayba ciyaartooyada kale hogaamiyo aad u wacan imika jooga Karim Benzema oo waqtiyadii ugu dambeysay waqtigiisii ku jira ugu wacan marka Vinicius oo kale waa ciyaartooy isaguna aad iyo aad tiidiisu saarayso waa ciyaartooyga boqolkiiba 90 kooxda miisaanka leh ee kooxda guul gaarsiin karaya guul darrana ku ridi karaya Modric Toni Kroos oo kale ma jiraan dhaxay Modric Toni Kroos oo kale dhex kubadda tuurta iyo dhex kubadda qurxiso la cararta oo socodsiisa iyo dhex kubadda xidha saddexda dhexeed koox ay حتى الآن اسمه دعدي ما قرن كريه ولو كان سيتي لحدة آدي آدي وعنتها لكن هذا ما صدق ذا قاعد عيارين لحدة ريال مدريد وكله متشرو كوح لم يدخل وأنا كوح هذا وقعد عاد شامبيونك عاد بنقول ده ولا دقيقة هلو عندنا بعد ما سنتي عبسنا هذين كخميس السوق اللي سوى العيار أنا لقتي لبعض شامبيون ليج لبعض كوح هذا مانشستر سيتي يا بايرن ميونخ ولو بايرن ميونخ لقتي هراء النتيجة صدق هي برا اللي قصة بدي يعني جرونكا اتحاد استاديوم ما يسلي هذا جرون كذا بكسر لعبان كرتان النتيجة صدق هي برا كويس لعبان اسمي لي أنا بايرن ميونخ كسر لعبان دون تايو ما سيتي وكبدن دون تا إيه سيد هراء عندنا إسكسو ونشين ده كله وحرتشينه أنا صار لعبان كريم رتشينه كوب كنا ما سيتي ونرتشينه إن شاء الله أنا كل جلوسنا دون تواي أود ريال هذا يمكن لا يصحيح دايم إنك استوصلنا تقارن لا يصحيح لكن لا يصحيح كوب كنا يدان رتشينه ينبلون إسكوي ما دام ما سيتي قادو وريم سولو ورداتي في ولا لو كله عادي دوك بلا مقعد مقعد يوسف فرح يوسف مقعد يوسف حرقنا يوسف وابنك خميس سوق رأس وحلا عيار دنا لقتي لبعض حول عيار دنا لبعض كوحود بايرن مونيخ إيه مان سيتي ولا بايرن مونيخ كلن كورن سيد حياة برا اللي جالس بدي جرون كمان سيتي ما يصير هذا ويصور لعبان كرتا هذا بايرن مونيخ سيد حياة برا كيصور لعبان كرتا ولا لو هناهنتي ورثوا نادي مان سيتي لا هو النادي أبو عرق
boqolkiiba boqol aan waxa soo oran karaya inaanay Bayern Munich aanay soo laabanaysaa ku socotay waayo natiijada haysata Man City waa 3-0 marka aanu ismilahi aad iyo aad ma soo laaban karayso Bayern Munich ugu dambeyntii adigoo saadaalinaya isleedahay sanadkan 2023 Champions League kooxdee ku guuleysan karta kulli nimanka hore u hantay ayuunba waxa weeye mar walba yeelanaya oo ah Real Madrid aad ku soo ogaanaysaa walaalow masafada ay ku ciyaaraan horta run ahaantii iyagoo in kastoo ay soo maray gurubya ay aad u jilicsan iyo waxyaalahaas oo dhan hasaatan laakiin boqolkiiba boqol aniga raay ahaanteeda waxa isleeyahay Real Madrid ayuunba qaadi karta Cabdirashiidow habeenka Khamiista soo galayso waxa la ciyaari doonaa lugtii labaad labada kooxood ee Bayern Munich iyo Man City walow Bayern Munich 3-0 lagaga soo badiyay lugtii hore haddana waxa la tagi doonaa garoonkeedii ma isleedahay natiijada way ka soo laaban kartaa Bayern Munich walaal may ka soo noqon mayso koox weyn oo 3-0 lagaga badiyay meel xun bay lugta la gasho Man City oo la garanayaa halana wada takafid baran oo ka dambeeya deena ka soo noqoto filmay iyadoo lagaga sii badiyay Man 3-0 ugu dambeyntii yaa isleedahay sanadkan 2023 way ku guuleysan kartaa Champions League koox ahaanteeba ugu cadcad Manchester City ku guuleysan insha Allah dilay maxaad ku soo ogaanaysaa ugu cadcad waa koox weyn oo sanado horena way timiyo sanadkan laga yaabo haday timaado inay qaado dilay kali damaadkina ku soo gudbay magacaygu waa Sadiq Ismaan Cabdi Sadiq oo habeenka Khamiista waxa loo balaansay in la ciyaaro labada kooxood ciyaaraan lugtii labada Champions League Man City iyo Bayern Munich walow Bayern Munich lugtii hore lagu soo xashooqay 3-0 ma isleedahay way soo laaban kartaa ka soo laaban wallahi horta waa ciyaar markii hore la soo kala badiyay walba timo oo soo kala badiyeen Bayern soo laabato horta arena la tagaya Bayern soo laabatana waa wax dhici kara laakiin aad bay ugu adkaanaysaa hadii way timo weyn bay ka hor imanaysaa Man City dhinac walba dhameystiran waxaan maleynayaa oo suurtagal ah inaanay soo laaban karin Bayern ugu dambeyntii sanadkan 2023 yaad isleedahay kooxdeeba ugu cadcad oo ku guuleysan karta Champions League taniyo sida caadiga ama la iska og yahayba baalkan waxa sharaxan malaha Real Madrid cadcad nimankii sanadka hore inay yiri booska shaytuunaan si banayaan marka insha Allah iyagu ma rajaynaya waana kooxda insha Allah iyagu ma aan taageersan iyagana u rajaynaya insha Allah inay ku guuleystaan Champions League 2023 insha Allah Khalid oo habeenka Khamiista soo galayso waxa loo balaansay inay wada ciyaaraan labada kooxood ee Bayern Munich iyo Man City lugtii labaad ee Champions League walow Bayern Munich 3-0 lagaga soo badiyay garoonka Etihad Stadium ma isleedahay Bayern Munich way ka soo laaban kartaa natiijada inta leeg oo guuleysan kartaa Bismillahir Rahmanir Rahiim kulli waa su'aal wacan kulli waxa la ciyaaraya waa kubadda cag oo kulli kubadda cagtuna mufaajaado iska leedahay oo kulli mufaajooyin badan baan ka dhacay oo 3 iyo barba ka badan Bayern kulli waa koox weyn oo in badan championka kulli mustawooyin ka taagan walawaanay Man City waxba championka kulli aanay xog ka hayn marka kulli Bayern way ka soo noqon kartaa iyadoo garoonkeedu joogta sababtana kulli Bayern Munich waxa ka muuqday lugtii hore qarbo macalinka ku cusba ciyaartooyda laftigooda oo aan line-up-ka qaar badan ku soo bilaaban insha Allah kulli macalinku hadduu falsafadiisa ugu wacnayd uu ku soo galo waxaan rajaynayaa inay soo noqon karto waliba si wacan u soo noqon karto ugu dambeyntii asleedahay sanadkan kooxdaas ugu cadcad oo ku guuleysan karta Champions League kulli Champions League iska saadaalintiisu iska hawl badan tahay oo kulli Champions ku horeen ogeyno kooxo badan loo saadaaliyo maxay tolay Real Madrid oo aad u liidato aan la islahayn Champions qaadaysa ayaa kaalintii koobaad gashayba kulli anigu wax markaan eego kulli waxaan iskugu soo baxayba wadaadageen laakiin waxaan u rajaynayaa waxaan u isleeyahay way qaadi kartaa Real Madrid magacayga Jamal Axmed Kalbaadha Jamal habeenka Khamiista waxa loo balaansay in labada kooxood ee Bayern Munich iyo Man City wada ciyaaraan lugtii labaad ee Champions League walow Bayern Munich lugtii hore 3-0 lagaga soo badiyay wasleedahay Bayern Munich ka soo laaban kartaa natiijada inta leeg may kama soo laaban kareysaan anuu ayaan filayaa san leedahay aragtideedu waayo sababtaan waxaan u sababeynayaa qabyarada City ku jirto waqti xadarkan inaan ka soo laaban kareen muddayntii sanadkan 2003 kooxdeeba isleedahay ugu cadcad Champions League ku guuleysan karta ma isto ku guuleysan karaysa qabyarada ku jirto iyo waxa soo bandhigaysa
marka hore Bayern waa koox champion laakiin Man City ayaa awood sanadkan awood ku wada koox awood leh marka coach khibrad lana aadna u wata marka hore Man City dhibaatada haystay waxay ahayd xagga weerarka weerar khatar badanna hadda way soo gateen marka in laga soo noqonayo karo lama eka Man City ugu dambeyntii asleeday sanadkan 2003 ay ku guuleysan kartaa Champions League ama ugu cadcad sanadkan sida muuqataba awoodda kuwada waa Man City ba ilaa kooxda qaadi karaysa ma isahay ismiilay ka soo laaban karaysa waxaan ku sameynaa saaxiibto ciyaartii hore uu daawinay Man City sanadkan waa labada naadi ugu awoodda wada ciyaarta marona karaysa ismiilay uu soo laaban karaysa oo comeback wax dhici karaysa oo goolal inta ka badan oo laga soo laaban karay laakiin markii ismiilay laga soo laabanaysa Man City ma badan sanadkan saadaasheeda haddana eegaan saadaasheeda sanadkan waxaan saadaasheeda haddana eegaan saaxiib waxa la yahay ku guuleysanaysa Man City